waan salaamay khayr meel baad joogtaan maanta waxaan idin hayaa buug muhiim ah oo aan mar dhow akhriyay oo aad aan uga helay waxyaabaha aan ka fahmay buuggan ama aan ka bartay aan rabaa inaan kuu soo koobo si ay bilaad adigana uga faa'iidid buuggan waxaa qoray wariyaha caanka ah taqaanaan Mahdi Xasan oo Aljazeera u shaqayn jiray balse hadda Mareykanka joogo Mareykanka ka shaqeeyo sanadkii hore ayuu soo baxay wuxuuna ka mid ahaa buugaagtii loogu hadalhaynta badnaa usbuuca uu soo baxay wuxuu ku jiray xitaa liiska New York Times buugaagta loogu gadashada badnaa usbuucaas ingiriiska sidoo kale buugaagta loogu hadalhaynta badnaa ayuu ka mid ahaa Amazonka usbuuc ama laba usbuuc ayuu haystay liiska ugu horeeya marka buug muhiim ah oo maaragtay aad loo hadalhayo waxyaabaha aan ka bartaan rabaa marka inaan soo koobo dhowr qodob waxaan rajaynayaa inaan wax badan ka faa'iidi doonto buugga wuxuu ku saabsan yahay horta qaabka loogu guuleysto doodaha wuxuu kaloo ka hadlayaa qaabka maaragtay public speakingka dadka maaragtay jecel munaasabadaha ama meelaha public inay ka hadlaan ayuu anfacayaa ardaydu waa anfacayaa qoraayaasha xitaa waa anfacayaa wariyaasha xitaa waa anfacayaa qaabka interviewga loo sameeyo ayuu maaragtay buuggan barayaa balse saddex qodob oo muhiim ah oo aan ka bartaan rabaa inaan hadda halkan kugu soo koobo okay qodobka ugu horeeya oo aan buuggan ka bartay waxaa weeyaan wuxuu leeyahay qoraagu wax walba aad sheegaysid presentation hadduu yahay ama uu yahay meel munaasabad aad ka hadlaysid ama research aad soo bandhigaysid dadka aad u sheegaysid qodobada xaqiiqooyinka aad soo qortay ama soo ogaatay keliya ha sheegine laakiin dareenkooda taabo dadka aad la hadlaysid tusaale ahaan haddii aad research soo samayso kale aad leedahay boqolkiiba 75 dhalinyaro waa Soomaaliya waxa joogo boqolkiiba intaas shaqo la'aan waaye boqolkiiba intaas waa arday waxyaabahaas aad soo gudbinaysid dadka u sheegaysid waa inaad isticmaashaan tusaalooyin dareenkooda taabanaya si dadku u xusuustaan maxaa yeelay nambaradan iyo xaqiiqooyinkan iyo waxyaabahan aad soo bandhigaysid dadka badanaa ma xusuusanayaan laakiin waxay xusuusanayaan haddaad tusaalooyin dareenkooda taabanaya u dhex raacisid sheekooyin ha noqoto waxyaaba iyaga ay maaragtay iska dhex arki karaan ha noqoto marka dareenka waa muhiim wuxuu leeyahay marka facts kaliya wax ma sameeyaan ee emotionka ayaa wax sameeya labadooda oo isla socdo dareenka dadka iyo xaqiiqada aad soo ururisay marka qodob muhiim waa qodobkaas haddii aad maaragtay wax qoraysid haddii aad meel ka hadlaysid xusuusnoo mar walbaba inaad dareenka dadka taabatid qodobka labaad oo aan ka bartay buuggan waxaa weeyaan waa qodob cajiib ah waxaa jiro sharci la dhaho the rule of three af Soomaali ahaan waxaa la dhihi karaa sharciga saddexlaha waa qaacido la xaqiijiyay oo la soo baaray oo la ogaaday waxa isticmaali jiray xitaa filosofaradii hore Greega muhiimadeeduna waxa weeyaan wax walba aad soo bandhigaysid ama dood ha noqoto ama meel aad ka hadlaysid ama qoraal aad soo gudbinaysid doodahaada iyo qodobadaada mar walba saddex qayb waa inaad ka dhigtaa qaybta koowaad qaybta labaad ama qaybta saddexaad ama ina arrimaha ka hadlaysid aad dhahdaa waa 1 2 3 mar walba waa saddex qayb inay ahaato waxa ka hadlaysa ama fikrad ha noqoto saddex fikrad ama saddex qayb oo hore dhexe iyo dhamaad leh ama group aad u sameynaysid waxyaabaha aad ka hadlaysid mar walba saddex inay ahaadaan muhiim ah sababta loo leeyahay saddex u sheegna waxa weeyaan cilmi baaris la sameeyay waxa lagu ogaaday xusuusta bini'aadamka maskaxda inay mar walba qabato waxyaabaha loogu sheego saddexda haddii aad dad la hadlaysid oo waxyaabaha ka hadlaysid oo dhan oo duuban hal mar aad maaragtay madax ka gelisid qofku meesha markuu ka tago waxa sheegtay way adag tahay inuu xusuusto balse hadda saddex qayb oo kala dhigtid structure ay leedahay waxa uu sheegtay maskaxda bini'aadamka waxay jeceshahay structure-kaas inay raacdo waxa laga yaabaa qofkaas hadhow markuu banaanka u baxo inuu waxa uu sheegtay hal ama laba ka xusuusto marka waa qodob muhiim ah haddii aad wax qoraysid haddii aad dood soo bandhigaysid haddii aad meel ka hadlaysid mar walbaba fikradahaada nidaam ha lahaadaan structure oo saddex qayb ah tusaale ahaan haddaa u fiirsatid khudbooyinka dadka maaragtay public speakingka aadka looga dambeeyo sida Obama oo kale fariimaha uu gudbinayo iyo khudbooyinka uu sheegayo badanaa saddex qayb ay ka kooban yihiin xitaa haddaysan ahayn 1 2 3 markaad dhuuxdid waxaa ka dhex dhadhaminaysaa inay kala gogosan tahay saddex qayb ay tahay hadallada xitaa marka mar walba oo dadka markaas ku dhageysanayo waxay xusuusanayaan qaybaha aad u sheegtay iyo hadallada maskaxda bini'aadamkana waxay jeceshahay pattern inay raacdo structure inay raacdo qofka sidaas uu kugu xusuusanaya waxa sheegtay marka iska hadlin wax walba aad sheegaysid saddex qayb ha ku dhisnaato qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan aan ka bartay buuggan aan rajaynayo inuu ku anfacayo adigana qaabka hadalka u soo bandhigaysid waxaa jirto research la sameeyay professor lagu magacaabo Albert Mehrabian oo 1971 buug uu qoray wuxuu ku sheegay hadalka muhiimadda uu leeyahay kaliya wuxuu ka dhigan yahay boqolkiiba 93 waxaa ka muhiimsan qaabka hadalka u soo bandhigaysid codkaaga qaabka uu soo baxaayo expressionkaaga wejigaaga indhahaaga gacmahaaga waxaasoo dhan ayaa ka muhiimsan marka ogow mar walbaba haddaad maaragtay khudbo ama barnaamij diyaarinaysid waa inaad soo practice garaysaa
hadallada aad ka hadlaysid qaabka usoo gudbinaysid fariinta maadaama body language-kaaga iyo qaabka hadalkaaga usoo bixinaysid ay ka muhiimsan tahay boqolkiiba 93 waxyaabaha aad sheegaysid tusaale ahaan ereyada aad sheegaysid tusaale wax oo farxad leh haddaad ka hadlaysid qaabka wejigaaga iyo gacmahaaga iyo hadalkaaga xataa codkaaga qaabka usoo baxayo way ka duwan tahay markaa wax murugo la sheegaysid wax xamaasad leh markaa ka hadlaysid gacmahaaga iyo wejigaaga iyo qaabka u tuuraysid hadallada iyo gacmaha qaabka u kala bixinaysid way ka duwan tahay markaa waxyaaba caadi iyo xamaasad lahayn ka hadlaysid marka haddii mar walba presentation aad samaynaysid ama meel public aad ka hadlaysid khudbadaada diyaarinteeda waa inay mar walbaba aad ku darsatay xisaabta qaabka aad usoo gudbinaysid marka inaad practice soo samaysaa oo aad muraayad intaa hor istaagtid adiga isla hadashaa tan waa wax maaragtay cilmi scientific ku dhisan oo lasoo baaray oo la ogaaday marka wax walba uu buugga maaragtay uu kusoo qaadanaya qoraaga wuxuu raacinayaa maaragtay meeshuu ka keenay cilmi baarista la sameeyey sida maaragtay tusaalooyinka dadka maaragtay hadda aan naqaano kale jooga sida Obama oo kale qaabka ay usoo gudbinayaan cilmi baarista meesha uu maaragtay ku saleysan tahay waxyaabaha uu fikradaha uu naga gadayo anaga mar walba waxay ku dhisan tahay cilmi baaris oo scientific ah marka ugu muhiimadaas ay leedahay aniga saddexdaas qodob ayaa kala dhaxbaxay buuggan waxaan rajeynayaa adigana inaan maaragtay wax badan ka faa'iiday inta aan hadda ka hadlay haddii aad buugga akhrisay waxyaabo kale oo ka faa'iiday fadlan haddii jiraan commentiga igu soo qor insha Allah marka xigo waxaan isku dayi doonaa inaan sidoo kale buugaagta kale akhriyo waxyaabaha ka faa'iiday inaan soo koobo aan halkan idin kula wadaago waxaan rajeynayaa inaan wax badan ka faa'iiday intaa mar kale kulmi doono waxaan kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo